qisadan waxa ay la soo wadaagay wiil ku nool magaalada Muqdisho runtii waxaan aad u jeclaystay in qisada isaga aan ka wareysto laakiin caqabad haysta darteeda ayaan anigu qisada u soo tabiyay inta badan waxaan jeclahay dadka ku nool magaalada Muqdisho inaan ku casuumo stuudiyaha halkaan bulshada ay la wadaagaan dareenkooda ee qisada haysata laakiin duruufo badan oo haysto ayaan ka ogolaaday qisada inaan anigu tabiyo waxa uu ku nool yahay magaalada Muqdisho waana qof ku dhashay isla magaalada Muqdisho wuxuu dhahay waxaan ka soo jeeday qoys dhaqaale haysto waxaan ahayn 9 caruur ah 6 gabdhood iyo 4 wiil qoys waxaan ahayn ladan noloshoodana aad u qurux badan tahay runtii qaar way iga weynaayeen qaarna way iga yaraayeen walaalahay ahaan markaan 13 sano gaaray waxa geeriyooday aabahay Allah u naxariisto ahaa qof caruurtiisa isku haayo mar walbana jeclaa qoyskiisa inay wada jir ahaadaan waxay noloshii socoto waxaan bilaabay iskuulka anigoo jira 15 sano Allah u naxariisto aabe waxa uu jeclaa in markaan quraanka dhameeyno inuu nageeyo iskuulka sida caadada ahayd noloshii ayaan halkeedii ka sii wadanay dhaqaalihii aaba uu ka geeriyooday waxa maamulayay walaalahay qaasatan 2 gabdhood iyo 2 wiil kuwa noogu waaweynaa ayaa maamulayay nolosheeni way qurux badnayd wuxuu waqtigu iwaayaha socdo waxa dhacday in anigu ahaan aan gaaray 17 sano waxaan jeclaystay inaan aniguna qayb ka noqdo ganacsiga walaalahay ee wadaan wax badan aan ka barto laakiin markaan arintaa u soo bandhigay dhamaantooda way iga diideen waxay dhaheen waa yar tahay ilaa jaamacad ka dhamayso kuma ogolaanayno ganacsiga ee waxbarashada wad anigoo 18 sano jiro waxa ay soo gabagaboobay dugsigayga sare isla markii waxaan bilaabay jaamacadii ayaan dhiganayay runtii noloshayda waxay ahayd mid aad u wanaagsan wax dhibaato iyo caqabad leh aan lahayn waxay noloshu socoto maalin maalmaha kamid ah anigoo ka imid jaamacadda ayaan waxaan wadada ku arkay gabar xilligaas ii muuqatay inay dhibaato haysato socodka ayaan soo boobsiyay kadib markaan agteeda imid ayaan ku dhahay salaamu calaykum wa calaykum salaam ayay igu tiri waxaan ku dhahay kor dheer ayaan ka arkay waxaana ila noqotay qof dhibaato haysato ma yeetir walaal wax dhibaato ima haysto laakiin kuleelka saa'idka ah soo ma dareemaysid ha ayaan ku dhahay socodkin waan isla soo qaadnay halkii ayaan ku sii sheekaysanay aniga gabadhii laakiin ugu dambeyntii waxay tiri aday waxay weydiisay su'aashaada hadda ma kaaga jawaabi karaa ha ayaan ku dhahay waxay tiri walaal soo uma jeedid quraxda sida u kulushahay aniguna waad u jeedaa gabadhu waxay ahayd gabar xoogaa miisaan saaran yahay socodkaana u jeedo baawur waan awooday inaan raaco laakiin waxaan u raaci waayay si aan ku caatoobo markaasaan ku dhahay abaayo hal maalin oo la socdo laguma caatoobo soo moogid wax walba waa suubiyay tiri waana caatoobi lahay haddii aan jadwal ku suubiyo suuragal ma tahay inaad jadwalka raacdo markaasay waxay igu dhahday adigu ma macallin ayaa tahay waxaan ku dhahay maya anigu jaamacad ayaan ka imid macallin miihi laakiin macallin aan aad isugu fiicannahay ayaan aqaanaa wali gabdho iyo wiilal badan oo wax badan uu ka bedelay noloshooda aniguna isaga ayaan kaaga soo qaadayaa isaga wuxuu ku suubiyaa lacag laakiin aniga kaaga soo qaadayo waxay igu dhahday walaal aad u mahadsan tahay lacag walba diyaar waxaan u ahay inaan bixiyo lambarkaaga ii sheeg waayaha ayaan ku dhahay sidii ayaan gabadhii lambarkayga ugu qoray isla markii anigoo la joogo ayay soo wacday magacayaasheeni ayaan kala qorannay waan soo baxay xaafadda ayaan imid waxaan iska ahaa nin saakii hore baxay waan qadeeyay salaadaan tukaday waan iska seexday adigu bacdul casirkii markaan soo kacay ayaan telefoonkayga waxaan ku arkay dhowr miskool oo gabadhi ah kadib waan ku celiyay waxay igu dhahday walaal waan ku sugaayay waxa ku dhahay abaayo soo ma ogid in anigu saakii hore jaamacad aaday waan daalnaa xilligaana waan seexdaa laakiin haddaan soo kacay macallinka waan aadayaa waan kaaga soo qorayaa wax walba waana kuu soo dirayaa abaayo waayahay igu dhahday laakiin macallinka lacagta uu rabo anigaa iska bixinayo waan haystaa lacag waan ku soo wici doonaa ayaan ku dhahay sidii ayaan ku soo baxay waxaan umid macallinkii saaxiibkii ahaa waxa ku dhahay macallin waxaan rabaa gabar inaad maaragtay wadadii ku caatoobi lahayd aad ii sheegto markaasuu wuxuu igu dhahay dhirirkeeda iyo miisaankeeda iyo da'deeda waa qasab intaas inaan helo waan wacay waxaan ku dhahay waxaan rabaa miisaankaaga da'daada
wacay waxaan ku dhahay waxaan rabaa miisaankaaga da'daada iyo dhererkaaga markaasay waxay igu tiri laba waan kuu sheegi karaa miisaankayga iyo da'dayda laakiin dhererkayga maya macalinka wuxuu dhahay waa qasab inaan ogaado dhererkeeda waayahay tiri dhererka anigaa soo ogaanayo ugu dambayntii anigu macalinka waan ka soo noqday maalintii xigtay ayay gabadhii waxay ii soo dirtay sawirkii dhererkeeda sidii ayaan ugu diray macalinkii kadib waxaa loo soo suubiyey jadwal raashiin ah wuxuu dhahay macalinka haddii jadwalkaani ee 40 cisho waddo isbeddel ayay dareemi doontaa iyadaan laga celin doonin inay ku dhaqaaqdo laakiin 40 cisho ayaa waxay tahay qasab inay raacdo ugu dambayntii waan u diray waxaan ku dhahay abaayo haddii aad ku dadaasho waan hubaa inaad guulaysanaysid laakiin haddii aad ma aragtay maalintaad doonto cunto maalintaad doontana aad isaga suubiso wax faa'iida kuma soo kordhinayso 40 cisho ku dadaal waan hubaa inaad noqon doonto qalanjo waayahay tiri abbow waan dadaalayaa gabadhii howsheedii ayay wadatay aniga waxaan u malaynayaa 3 isbuuc ayaan mar wacay waxaan ku dhahay howshii ma wadaa si fiican ayaan u wadaayay tiri wax miyaad iska dareemaysaa hadda kuuma sheegayay tiri maalin ayaan kuu sheegi doonaa 40kii markuu u dhammaaday ayay soo wacday waxay tiri isbeddel weyn ayaan dareemayaa oo 5 kiilo ayaan iska dhimay gabadha markaa waxaa saarnaa 26 kiilo oo dheeri ah ayaa saarnaa kadib iyadii macalinkii ayaa si toos isugu xiray wuxuu socdaba gabadhii 6 bilood alxamdulillaah miisaankii loogu talagalay ayay imaatay way soo wacday waxay igu dhahday hadda ka hor anigoo cusub ayaa waxaa igu tiri hadda miisaankaaga iga waran laakiin waxaan rabaa inaan kulanno waayo waxaad ii aragtay anigoo socon la quraxda ay dhibayso ayaa hore ii aragtay waxaan rabaa hadda inay aragto sidaan ahay ugu dambayntii maalin ayaan balannay meel kafeteria ayaan isugu imaannay wallaahi aan ku dhaartay uma malaynaysid gabadhii aan arkay maalintii socon la iyo gabadhaan maanta aan arkay waxaan ku dhahay waxaa xaqiiq ah quruxda dumarka inay ku jirto inay caata yihiin wallaahi qof kale ayaad noqotay maalintii waxaa lagu malaynayay qof weyn ileen miisaanku dadka wuu weyneeyaa waxay dhahdeen runtii miisaankan waan dhibsaday wax walbaan suubiyey raashiinkii ayaan ka go'ay laakiin macalinka wuxuu ii sheegay qofka haddii uu raashiinka iska dhaafo uu gaajo isku dilo inuunan caatoobaynin la rabo qofka inuu maaragtay raashiin dheelitiran uu cuno waxaan qaatay taladiisa laakiin ilaahay ka sukoow wax walba oo ii hagaagay quruxdan maanta aan leeyahay adigaa ka dambeeyey weligay abaalkaaga ma gudi doono waxaad ii saaran tahay madaxa markaasaa waxaan ku dhahay anigu waxaan rabaa hal su'aal inaan ku weydiiyo ma jiraa caqabad aad kala kulantay intii aad ma aragtay hilibkan ku saarnaa markaasay igu tiri haa gabar walbo aan iscayno way igu cayn jirtay hilibka i saarnaa runtii waxaa jira wiil aan xiriir lahayn laakiin cayilnaanteeda darteeda ayuu iga tagay waayo wuxuu igu dhahay aniga waxaan rabaa inaan meelaha dalxiiska ku wado sawiro soo wada galno laakiin adiga haddii liyu kaa arko dadka way igu caynayaan waa maalintan go'aansaday inaan anigu iscaateeyo waxaan ku dhahay waa arrin wanaagsan hal su'aal kale aan ku weydiiyo adigu maantay xiriir miyaad leedahay waxay tiri maya waa arrin wanaagsan aan ku dhahay dhib ma lahan ku dhahay waan wada sheekaysan doonnaa meeshii aniidii gabadhii ku kaftannay ugu dambayntii waan soo kala tagnay waxaan imid xaafadda habeenkii markaan seexaa is dhahay gabadhii ayay hor imaanayso isku markii waan wacay waxba ma qarsanin waxaan ku dhahay runtii dadka kale iska daa quruxdaada maanta markaan soo arkay hurdo wayga imaan laadahay dhan walbaan u seexdo kulankeeni maantay ayaa ii hor imaanayo markaasay tiri waa iska caadi waayo waxaan ahay gabar walaashaa markaasaan ku dhahay waa sax inaan walaashay tahay laakiin waxaan dareemayaa qalbigayga inuu wax galay maxaa galay igu tiri waxaan ku dhahay adiga quruxdaada oo dhan ayaa wada galay markaasay tiri dhib ma lahan qof aad wax ka weynaysid ku fogeynaynin ayuu qalbigaaga arkay aniga abaala ii gashay mar walba diyaar waxaan u ahay in waxa qalbigaaga ku jiro haddii aad diyaar u tahay aan wada rumayno waxaa ku dhahay waayahay waan sii seexanayaa hadalan ku seexda ayaa ii sheegtay dhammaystirka sheekadan beri markaan jaamacadda ka imaado oon seexdoon soo kaco ayaa ma aragtay ani aday ka wada sheekaysanaynaa markaasay igu dhahday
hurdada miyaa iga hormarinaysaa masaan ay hormarinaysaa markaasaan ku dhahay waad mudan tahay inaan hurdada kaa hormariyo laakiin markaan hurdo waxaan ahay qof sheekeyn karo faraxsan wax walbana ma aragtay qaban kara waayahay igu dhahday sidii ayaa anigu isaga seexday habeenkii jaamacadaydii ayaan aaday waan ka imid waan seexday sida caadada ahayd markaan soo kacay casirkii tukaday ayaan ina meel tagay sida caadada ahayd markaan soo kacay casirkii tukaday ayaan ina meel tagay koob shaah caana geel ah anigu inta badan waxaan jeclahay inaan galbihii shaaha ka cabo meelaha ma aragtay aan kafeteriyaasha ahayn hooyooyinka meelaha shaah wadooyinka ku kariyo shaahoodan aad u jeclahay meeshaasaa tagay shaahan inaan qaatay kursigayga qaatay aan gees tagay waa waxaan ku dhahay waan soo seexday waxaan haystaa koobkayga shaaha waxaan rabaa inaan wax badan kuu sheego adiguna wax badan aan kaa dhagaysto waxaan ku dhahay aniga noloshayda wax jacayla ma soobinin qalbigaygana ma galin inaan qof xiriir la soobiyo laakiin adiga qalbigayga sidaan kuu sheegay waxbaad ku yeelatay waxaana rabaa in qalbigayga waxa yaraad ku leedahay maantay aan weynayno wadajir noqonno siday kula tahay waxay igu dhahday hore ayaan kugu sheegay aniga wax walboo adiga iga baahato diyaar ayaan ku ahay waxaa tahay qof abaaligu leh weligii aan iloobeynin naftayda waan nacay anigoo dhan waxaan noqday qof noloshiisii oo dhan ka qoostay waa niyad jabay kalsoonidii waa iga baaba'day miisaanka waxaan ku qiyaaso ma garanaynin culayskay saarnaa jir ahaan iyo qalbi ahaan ma soo koobi karin qofkii sababta u noqday abaalkaaga waxaan ku gudo ma aqaano wax walbo diyaar ayaan kugu lahay waxaan ku dhahay waxaan rabaa inaan suubsanno xiriir qurux badan godkaa inaan ku kala harna meehe aanan si kale ku kala harin waxay igu dhahday aniga qofkaan aamino aan ku kalsoonaado wallaahi cidna igama reebi karto diyaar waxaan u ahay balan walba iyo axdi walba aan wada dhiganno inaan ilaaliyo ilaa nafta inay iga baxdo meehe inaan agtaada ka fogaanaynin hal balan aan kaa qaadane aan ka baxaynin waxaan ku dhahay waa arrin wanaagsan haddii shalay aan wadda isku barannay kadibna sidii gabadhaan aan miisaanka isaga dhimi lahayd aan macallin ku xiray hadda laakiin waxaynu noqonnay laba lamaane aniga gabadhii xiriirkeennii ayaa aad u sii koray waxaan ka waraystay familkeeda waxay dhahday anigoo yar ayaa waxaa geeriyootay hooyaday waxaana soo koriyey aabbahay alxamdulilaah qoys ladan ayaan nahay laakiin runtii maantay aabbahay waa qof weyn gabadha walaashay ayaa maaragtay guriga wada maamusho iyadana waa la qabaa oo nin ganacsada ah ayaa qabo nolosheenna waa mid qurux badan aanan waxba ka maqnayn aniguna waxaan ku dhahay meeshii hooyadaa ka dhimatay aniga aabbahay ayaa ka dhintay laakiin nolosheenna way qurux badan tahay alxamdulilaah wax ka maqan ma leh sidii ayaan nolosheenni ku wadannay marba marka ka dambayso waxaynu ahayn laba qof xiriirkooda jacaylkooda uu sii koro isku kalsoon is aaminsan adigu maraa muddo sanad aan soconno aniguna jaamacadda sanad ay iga dhiman tahay ayay maalin waxay igu tiri waxaan rabaa inaan xaafadda ku geeyo aan ku bara familka waxaan ku dhahay waa arrin wanaagsan waxay geysay xaafaddii waxay bartay aabbaheed iyo walaalaheed galabtii markaan soo bixi rabay ayay waxay bartay gabadha walaasheedeed guriga dhan maamulaysay kadib meeshaan waxyar ku sheekaysannay waan iska soo baxay anigu xaafadeedaan soo aaday iska maqribaaba soo dhowaa maqribaan tukaday cishaa tukaday cashihii markii laga baxo ayaan inta badan wada sheekaysan jirnay intaana seexanin cabaar ayaan sheekaysannay markaas waxaan ku dhaha aabbaha waa qof iska waayeela walaalahani maasha allah laakiin walaasha aaday ii kuuraysay waxaan u malaynaa qof kulul inay tahay haa ayay tiri walaashay aad bay u kulushahay waana dadka jecel inay dadka amraan laakiin dhib ma lahan sidii aan iyada ku sheekaysannay habeenkii ku seexannay adigu gabadhii 2 sano xiriir aad u qurux badan ayaan lahayn ugu dambayntii jaamacadda ayaa ii soo gabagabowday markay jaamacaddii ii soo gabagabowday ayaa haddana waxaan u tagay walaalahay waxaan ku dhahay hadda jaamacadda waan dhameeyey waxaan rabaa inaan shaqeeyo shaqadan wax ka barto waayo ganacsiyo aad u kala duwan ayuu aabba ka dhintay oo walaalahayna ee wadaan waxaa laygu dhahay adigu hadda ayaa jaamacad dhammaysay marka hore waa inaad qaybta caawimaadda gashaa waayaha ayaan ku dhahay kadib anigu wax shaki ma galin kuwan waa walaalahay sidii ayaan shaqadii ku galay adigu maraan 2 bilood la shaqaynayo waan wax mushahara qaadanaynin waa lagu tababaraa leeyahay ayaa waxaa geeriyootay hooyo allah u naxariisto waliba lagu soo booday hore ka dhimatay hooyo
xanuun badan aan dareemay waayo hore aabba ayaa u dhintay hadda hooyo ayaa dhimatay hooyo aabba labadaba ma haysano sidaasay tahay waxay nolosha iska socoto oo iska wadno 6 bilood ayaa waxaan u shaqeynayay walaalahay tababar ayaa ku jirta ay dhahayeen waana xoolihii aabahay mid anigu shaqaalaha ka hay ugu dambeyn waxaan ku dhahay haye 6 bilood waan bartay wax walba waan qaban karaa anigu waxaan rabaa inaan mushahar laga dhigo oo toos aan u shaqeeyo markaas waxa lagu dhahay gudiga ayaa ka fadhiisanayo waayaha ayaan ku dhahay gudiga waa aniga walaalahay hadana wax dhiba uma arag ugu dambeyntii waxa lagu dhahay adigu ma suuroobayso inaad halkan ka shaqeyso markaasaan ku dhahay maxaa dhacay idinka dhan waa ka wada shaqeysaan anigu soo walaalkeeda miihi sideen shaqo kale banaan u raadsadaa hadiiba xoolihii aabahay meeshaan yaalaan walaalahay ma aragtay meeshii joogaan waa xaqeeni dhamaanteena uu naga dhaxeeyaa marka aniga meeshaan ka shaqeeyaan raba mushahar laga dhigiro inaa idinkoo kala noqdaan raba gabadha soo booday markaas ay tiri marna ma dhacayso inaa halkan ka shaqeyso isku day inaa shaqo banaan raadsato waxaan ku dhahay taas wax suuroobay maaha xoolahan waa wada leenahay maalinta wixii ka dambeeyay runtii 4 kamid ah walaalahay meel ay iga soo jeesteen ana 4 maamuleysay shaqada markaas ay u dhaheed maya marna ma soconayso inaa meesha aad ka shaqeyso runtii waan dooday si walba u dooday laakiin waan ka awood badan waayay waayo 4tooda wax maamulayay isku hadal ayay ahaayeen muhiimadoodan waxay ahayd inaa aniga meeshaas ka shaqeynin ugu dambeyntii abtigay ayaan arinta la wadaagay waxay ugu dhahay abti walaalaha kuwa wax maqlaaya maaha hooyada oo nool ayaan dhowr arin u keenay way iga diideen maanta iyo walaashay ee dhimatay kuwaas abti oo agtooda hay geenin markaasaan ku dhahay abti waayahay adigu shaqamaysiinaysaa wiilkayga soo dhawow igu dhahay anigu wiilkaygaan tahay maxaa shaqo kugu diidaa laakiin hal mid anigu meel bulkeeti ayaan leeyahay haddii aad bulkeetigaas xisaabi ka noqonaysid waa ku soo dhaweynayaa laakiin wiil jaamacad soo dhameeyay nolol qurux badanna ku soo koray ma u malaynaya inuu taas xamili karo waxaan ku dhahay dhib ma laha abti shaqo kale ayaan raadsanayaa waayahoy igu dhahay abti anigana waan kuu ducaynayaa shaqooyin kale iska raadsaday dee maanta walaalahay ila dhashay oo aabahay hooyaday dhaleen oo xoolaha lagu shaqeynayo anaga xoolaheena uu yahay ayaa maanta shaqo ii diiday sidee qof kale shaqo ii siinayaa ayaan shaqo raadiyay waan waayay maalin maalmaha ka mid ah wallahi anigoo aad u murugaysan ayaa gabadhii aan wada soconnay isoo wacday waxay igu dhahdeen noloshaydii waxaan rabaa arrin aan kuu sheego laakiin waxaan rabaa labadeena inaan kulanno waayahan ku dhahay galabta ayaan is arkaynaa sidii ayaan labadeena isugu imaanay waxay igu dhahdeen noloshaydii runtii ma jeclayn inaan kaa murjiyo laakiin maanta waxaan kuu sheegayo waad ku murgi doontaa gabadha walaashay ahayd runtii maalmahan hadal ayay igu tuutuuraysay laakiin hadalkaa waxaan u malaynayay mid iska hadal ah waxay igu dhahaysay waxaan rabaa wiil inaan kugu daro wiilkaana qurbuhu ka imaanayaa hadal kaftalaan u malaynayay waxay igu dhahday waxaa imaanayo ninka anigii qabo walaalkii oo qof da'daada ah qurbuha ayuu ka imaanayaa waa qof dhaqaale haysto wuxuu rabaa mustaqbal iyo nolol adigaana jeclaysannay inaan kugu darno waxaan ku dhahay walaashay waa mahadsan tahay anigu waxaan ahay gabar aqli leh wax baratay maantane mustaqbalkeeda iyo nolosheeda iyada rabta inay subsato waxaan la socdaa wiil waan ku baray xaafaddaan keenay dhammaan reerkana way ogyihiin waxaan xaafadda u keenay inaad ogaataan inaan anigu qof xiriir la leeyahay maantay wiilkaas ayaan la socdaa wiilkaas ayaan mustaqbal iyo nolol ka rajaynayaa marka ninkaaga waa qof ixtiraam iga mudan walaalkiina waa qof ixtiraam iga mudan laakiin guur markay imaato maya abbaayo mana dhacayso inaan aniga adiga hal meel wada galno taana suuragal maahan iga raali noqo abbaayo walaashay aabba ayay u tagtay waad aragtay aabbahay waa qof iska waayeelah hadalkeedane aabba waa u maqlaa sidaas ayuu aabbana wuxuu igu dhahay gabadhayda walaashaa ninka ay kuu rabto guurso waayo waad aragtay walaashaa ninka qaba siduu u wanaagsan yahay walaalkiina sidaasoo kale waa qof wanaagsan walaashaa hadday kula jeclaatay aabbe guurso waxaan ku dhahay aabbe maya
anigu qof ayaan la socdaa waan ku baray wiilka waad aragtay aabba ninkaan ina ahayn anigu ma rabo aabbahay wuxuu igu dhahay waxa ila fiican gabadhayda inaad qaadato hadalka walaasha waxa ku dhahay aabba way igu adag tahay kadib waxa noo bilowday dood aad u adag aniga walaashay laakiin saakay aabba ayaan dib ugu noqday waxaan ku dhahay aabbe anigu wiilaan jeclahay wiilkaasaan rabaa aabbe hadalka walaashay ee wado aabbe macaan waxaan rabaa in liiga daayo anigu waxaan ahay gabar wax baratay gabar weyn maskax iyo aqli leh aabbe qofka aan rabo aniga idin keenayo aabbahay wuxuu dhahay waa saxan tahay markaasaan ku dhahay aabbe iga xisho wuxuu igu dhahay aabbe warkaas oo dhan iska dayso wiilka hadda aad la socoto inuu ku guursado miyo diyaar u yahay haa ayaan ku dhahay markaa aniga sidaas ayuu aabbo wuxuu igu dhahay hadduu diyaar yahay inuu ku guursado uu rabo ii keen marka arrintaas ayaa jirto waxaan ku dhahay noloshaydii runtii waan dareemi karaa culayska ay leedahay arrintaasi markaasaan ku dhahay noloshaydii waad ogeed hooyo inay dhimatay aabbana hore ayuu u dhintoo horaan kugu sheegay walaalahay ayaa nolosheenni maamulayay hore markaan dugsiga sare anoo dhiganayo ayaan waxaan ku dhahay waxaan rabaa inaan shaqaysto waxay igu dhaheen jaamacad dhammeey jaamacadda markaan dhammeeyane 6 bilood ayaan la shaqaynaya anoo shaqaynaya ayaa hooyo dhimatay xilligaas waxaan shaqo liigu diidi karin hooyo ayaa joogtay 2 bilood anoo la shaqaynaya ayaa hooyo dhimatay kadib 4 kale la shaqeeyay 6 bilood ayaan sidaa ugu shaqeeyay ugu dambeyntii markaan dhaawal mushaar hal ay siiyo meeshaan hal iga mid dhigo xoolahan wasada leenahay hal meel ayay iga soo mareen wax walba aan soobiyane walaalahay wax waa fahansiin waayay intaan la doodi lahaa oo la booqi lahaa waxaan go'aansaday inaan anigu shaqo raadsado abti ayaan u sheegay waxba ma ka qaban karo igu dhahay abti wuxuu igu dhahay anigu waxaan leeyahay makiinad bulkeetiga haddii aad ka shaqaynaysid oo xisaabiye ka noqonaysid soo dhawow laakiin wiil jaamacad ka shaqeeyo ma u maleynayo dhib ma laha ku dhahay abti shaqo ayaan raadinaya anigoodan weli wax shaqo ah ma helin anigu waan ku jeclahay dhibkana diyaar waxaan u haynaa inaan kula qaybsado abtigey waa qofka maanta igu roon isagaan la wadaagaya arrinta bal wax xiriir dulqaaday intaan aabbo u tagin xoogaa anoo wax meel ku og waayahay igu dhahday laakiin soo dhaqso culays ayaa haysto waayahay ayaan ku dhahay ugu dambeyntii abti ayaan la wadaagay waxaan ku dhahay abti macaan aabbahay hooyaday dhaqaale way iga tageen laakiin walaalahay ku shaqeeyo anigana way ii diideen waad ogtahay adiga abtigay ah gabaraan jeclahay oo muddo aan wada soconnay abti macaan gabadhii reerkeeda nin kale inay ku daraan rabaan haddii ninka la socotid uu guur rabana keensa ayaa la yiri arrintaas ayaa abti macaan waxaan wax walba kugu sheegayo waxa tahay halka qof kaliya oo aan maanta isleeyahay ku naxariisanaya kuway la dhashay aabba iyo hooyo dhaleen wad u jeedaa abti macaan anigana gabadhan abti aad baan u jeclahay abti macaan waxa rabaa ina arrintan iga caawiso wuxuu dhahay abtigay abti horta ani waad ogtahay 2 reer ayaan leeyahay makiinadan bulkeetiga lagu soobiyo ayaa xilli xoolo aan ka haystaa adigu waxa tahay wiilkayga walaashay macaan dhashay abti wax aniga ahay hota kaama hagaraay bal waxaan fiirin doonaa kuwii kula dhashay ayaan abti ku noqonayaa waxaan ogaanaynaa warkooda ugu dambeeyay waayahay ayaan ku dhahay abti iika ayuu u tagay wuu la soo fadhiistay ugu dambeyntii abti ayaa soo wacay xaafadiisa ayaan ugu tagay wuxuu igu dhahay abti anigu walaalaha walaal kuma tilmaami karo anigoo abtigooda ayaan la hadlay si walba ayaan ula hadlay meel walba ayaan wax ka tusay laakiin waxay dhaheen shaliba waxaan shaqada ugu fogeynay waxay tahay waxaan ka dareennay in nin wax ku dheelaa uu yahay anagana lama u tashanin go'aanka keligiisa ayaa qaatay haddana keligiis meelahaas ka soo bixiyo xataa waxaan ku dhahay xoolahan soo maaha xoolihii aabbihii ugu geeriyooday ma ogtihiin inuu xaq ku leeyahay maanta haddaa u diidaanne maanta maalin ka liidato ayaa maarad ku xisaabtami doontaan ilaahay hortiisa abtiyow kuwan walaal maahan muhiimaddu waxay tahay inaan anaga tashanno wixii aan awoodnane abtiyow gabadhaas aan kula dhaqaaqno wuxuu igu dhahay abti macaan marka ugu horeysa reerka ayaan u tagaynaa markaan axwaashooda
iyo gabadhii ayna siiyaan ayaan abti macaan deen iyo deeqba gurigan waan ku dhisayaa abti waxba ha ka baqin waayaha ayaan ku dhahay abti kadib ani waxaan ku fikiray hal adeer oo aabba la dhashay inaan la hadlo isaga ayaan wacay markaan mooni joogin magaalada Muqdisho meel gobol ah ayuu jiray waxaan ku dhahay adeer qoys qurux badan walaalo iswato aabba iyo hooyo ayaad ogeyd aabba haddii uu geeriyooday wax walba sida hore ma ahayn laakiin geerida hooyo kadib wax walba way sii baaba'een aniga waxaan ahay wiil jaamacad ka soo baxay waad ogtahay aabba hanti ayuu ka dhintay walaalahay ayaa haystaan shaqooyinkii way ii diideen anigu waxaan ahay qof wax bartay haddana aan shaqo haysanin magaaladaanna waad ogtahay garab ayaa la isku siiyaa shaqada anigana walaalahay ayaa ii diiday xoolihii aniga waxaan ku lahaa saasay tahay lama doodin waan isaga soo tagay waxaan shaqo raadiyay adeer aniga gabar ayaan wada soconnay gabadhii ayaa hadda reerkeeda waxay dhaheen gabadhii naga soo doona ama nin kale ayaan siinaynaa walaalahayna wax walba way ii diidan yihiin adeerka wuxuu dhahay wax walba waan maqlay laakiin walaalaha ma ahan kuwa wanaagsan aniga hore ayaan u maqlay arrintaada horaan ugula hadlay laakiin dad wax maqlaaya maaha waxaan ku soo binnana maanta ma aqaano anigana hadda nilama joogo kolley waa qof iska xoolo dhaqata ah oo hadal leh inuu wax u sheega meehe aanan maanta waxba ka qaban karin waan qoostay ugu dambayntii gabadhii ayaan wacay waxaan ku dhahay waxaan rabaa inaan aniga iyo abtigay aan la kulanno marka ugu horeyso aabbaha gabadha aabbaheedna waa qof waayeelah guriga waxaa u taliso gabadha hadda rabto ninka inay ku darto sidii ayay aabbaheed iyo walaasheed noogu balamisay waan tagnay xaafaddii runtii si wanaagsan ayuu noogula hadlay gabadha aabbaheed abtiyaa wuxuu ku yidhi waxaan maanta u soconnaa gabadhaada iyo inaan isbaranno waxaan rabnaa gabadhan inaan la siiso labadan ilmood way isjeclaadeen runta haddaan kuu sheegane anagu ma nihin dad xoolo buuran wado laakiin sidaasay tahay inta karaankeena waan soo dadaalaynaa waxaan rabnaa dhaqankii inaan soo galno gabadhiinna la siiyo gabadha aabbaheed wuxuu yidhi wax walba waxaa ka qiimo badan dadku dhahay anaga gurigaagaan ku jirnaa inaa gabadhaadana siisaana rabnaa ee waddadii u soo mara sidii ayaa lagu soo ballamay abti wuxuu yidhi bishaan markay dhammaato ayaan idiin imaanaynaa bishana 11 ayay maraysay aniga abti waan is soo raacnay intaa jidka soo soconnay ayaa waxaan ku dhahay abti bisha ma og tahay maanta 11 inay marayso waan oguhu yidhi haddii aan muddo dheer qabsado gabadha waa lagugu haystaa wiilkaygiyow dadkaanna waa taqaanaa qof qurbo ka yimaada hadday maqlaan wax kale ma maqlaan wax kalena ma arkaan nin uma maleeyaan kan halkan joogo sidaas ayaa waxaan u soo qabsaday 19 cisho ilaahay idinkii waan qeyraynaa wiilkayga meel walbana waan kuu galayaa gurigan wax walba ha qaadato waa dhisaynaa insha Allah bidnillaahi kariim abtigay dadaal badan ayuu galay wax walba ayuu suubiyey ugu dambayntii lacag 4,000 ayuu abti soo helay wuxuu yidhi wiilkayga 4,000 ayaan reerka u geenaynaa kadibna haddana gurigii dhisidiisii waan gali doonaa waayahay ayaan ku dhahay abti odayaal ayuu ka xeestay waqtigii ballanta markii la gaaray gabadhii ayuu mar labaad ii doonay runtii gabadha aabbaheeda ayaa wax walba ku dadaalay waayo gabadha walaasheed waxay rabtay waxaan oo dhan inay burburaan laakiin gabadha aabbaheeda wuxuu ahaa qof da'da ee haysa meehe qof wanaagsan bid'aadannimada iyo guurka wax badan ka yaqaana ayuu ahaa sidii ayaa gabadhina lagu soo siiyey waqtigii meherkana waa la ballamay aniga waxaan wacay marka gabadhii waxaan ku dhahay waqtigii la ballamay waqti aan ku darsanno runtii abti dadaal badan oo muujinaya waan ogahay abti waqtiga inuu yareysanayo laakiin hawsha way badan tahay waana keligii waayahay igu tiri aniga aabbo wax walba u sheegayo adiga markaa waxaa la ballamay bil kadib inuu haddana dhaco arooska laakiin 2 bilood ayay gabadhii aabbaheeda ka soo dhammaysay dadaal badan ayuu abti galay sidii ayaa jiifkii iyo fadhigii lagu soo gaday 2 qol sidii ayaa jiifkii iyo fadhigii lagu soo gaday 2 qol ayaan kiraysanay anigoo qoyskayga dhaqaale haystaan walaalahay lacagtii aabbahay uu ka dhintay ku shaqaynayaan ayay haddana shilin ii diideen kadib markii 2 qol aan kireeyo fadhigii iyo jiifkii wax walba aan dhigay ayaa walaalkay midka weyn aan u tagay waxaan ku dhahay walaalkaygiiyow
aniga adi waxaan nahay laba walaalo ah aabba iyo hooyo ayaana wada dhalay aabbe waa uu dhintay hooyana way dhimatay waan ogahay qoyska haddii aabba iyo hooyo ay ka baxaan inay dayacmaan walaalkaygu waad iga weyn tahay waan ku xushmeeyaa waana ku jeclahay walaalkaygiiyo wax walba ha ahaado maantay garab aan u baahanahay anigoo xoolahaan ahaysiin aan ogahay in aniga xaq aan ku leeyahay haddana kuma dhahay xoolahaygiisii walaalkaygiiow maantay garab aan kaaga baahanahay inay caawiso ayaan rabaa aroos ayaan ahay waan dadaalay abti rafaad badan ayuu ii maray maantay 2 qol ayaan soo kiraystay jiifi fadhigana waa dhigtay walaalkaygiiyo waxaan kaa rabaa kaliya inaan shaqaale kuu noqdo si aan gurigayga u dhaqdo meel aan wax ku ogahay male walaal shaqo meel walba aan ka raadiyane walaal waan ka waayey wuxuu igu dhahay walaalkaygiiyo aniga hore ayaan kugu sheegay magaaladan Muqdisho way weyn tahay shaqayso si walba hadaan ula hadlay naxariis waan ka waayey walaalkay waan iska soo tagay ugu dambeyntii waqtigii ballanta ayaa la gaaray sidii ayuu arooskeeni ku dhacay labada qof haday is jecel yihiin wax walba way isugu sabraan runtii gabadha aan jeclahay walaasheed meel walba ayay ka tustay waxay tiri ninaan wax haysanin maanta Soomaali kula joogo baritoole 2 iyo 3 inuu ka dhalo ayaa lagu arki doonaa adigoo rafaadsan laakiin wiilkan qurbaha ka yimid haddaan kuugu daro noloshaada waxay noqonaysaa mid wanaagsan si walba ay wax ugu sheegtay dhaqaale ayay tustay qurba in la geenayo ayay u sheegtay laakiin waxay tiri maya anigu dhaqaalaha iyo baasaboorka aad sheegaysid waxa igala qiimo badan wiilka aan jeclahay ayaan isfahanay jacaylkan isu guursanayno wixii bari imaan doono ilaahun baa og laakiin wax walba imaado waa inaan jacaylkayga marka hore fiirsadaa ilaah ayaa og bari wax imaan doono adigu ma ogid aniguna ma ogi laakiin waxaan rajaynayaa inaan nolol wanaagsan ku noolaan doono runtii anigu waxaan bilaabay inaan dadaalo shaqo raadiyo laakiin waqtiga marmarkii qaar kuma saacido ee uu ka hor imaadaa ugu dambeyntii waxaan u tagay abti waxaan ku dhahay abti aniga doontii way la soo caarisay shaqo walbaan raadiyane waan waayay maanta waxaan ahay nin biil laga sugaayo kama shaqeynaayo meeshaan ma dhihi karo abti waxaan diyaar u ahay makiinadaada bulkeetiga inaan anigu xisaabiye ka noqdo sidaas waxaan go'aan ku gaaray makiinadii abti inaan macaamiil badan u raadiyo runtii subaxii haddaan soo kaco oo aan imaado meesha xisaabteeda isku dabarido waan bixi jiray waxaan aadi jiray meel walba oo dhismo ka socdo waxaan raadin jiray injineer walba si aan ugu gado bulkeetiga alxamdulillaah waxaan soo korriyay macaamiil fiican shaqadeena si wanaagsan ayay noogu socotay waxay sidaa ahaato abti ilmo badan ayuu dhalay runtii waxkeeda ma uusan lahayn aniga arooskaygana lacagta waa uu soo deemiyey ugu dambeyntii makiinadii ayaa naga halawday aniga abti waxaan dareennay culays aad u weyn abti wuxuu ku tiirsanaa makiinada anigana waxaan ku tiirsanaa makiinada culays badan ayaana soo wajahay xilliga culayskuna soo wajahay aniga gabadha 6 bilood ayaan isqabnaa uur 2 biloodna way leedahay runtii maalmihii hore waxaan ku moomoodnay lacaga deemo kuma maqnaa oo abti aan soo aroorinay wixii soo baxaba aan qaybsanaynay abti aad buu ugu niyad jabay inuu makiinad kala keeno waayo deemanka ayaa aad ugu batay abti wuxuu igu dhahay aniga walkaygiiyo waan dadaalay waana ii socon la'dahay inaan makiinadii dib u soo celiyo sidaas darteeda meeshan kira ayaan ugu socoto waan iska fasaxayaa anigana suuqa bakaara ayaan galayaa oo dalaal ayaan noqonayaa abti marka horeba wuxuu ahaa dalaal baawurta gobolada aadayo ayuu rari jiray meeshiisii ayuu ku noqday aniga aad bay ugu adkaatay nolosha runtii waxaan bilaabay shaxaad iyo meel walba gurigayga inaan isku dayo inaan ku biilo haddaan $2 helo haddaan 3 helo haddii aan eber helo waan imaan jiray waxaan cunno waxaan ugu darnaa guriga kiradiisa waayo bisha waqtigeed dhamaatay ma taqaanid iidoo taagan oo soo dir lagu leeyahay baad arkaysaa waxay sidaa ahaato oo duruufta ay aad u adkaato gabadhii ayaa foolatay waxaa cajaa'ib ila noqday anigu walaalahay waan ka qoostay waan ka rajo dhigay wax naxariisane ima muujinaynin si lamid ah xaaskayga walaasheed weyn oo guriga maamulaysay uma naxariisanaynin si walba aabaheed wuxuu ahaa qof aad u naxariis badan laakiin qof waayeel ayuu ahaa
oo isagaba gacanta lagu hayay runtii aad bay noogu adkaatay nolosha gabadhii way dhashay ilaahay waxa uu siiyay gabar runtii nolosha aad bay u culus tahay wali ninka ragga ah markii xaaskiisa ay u dhasho ama fool u noqoto runtii waxba haysanin nolosha way ku adkaanaysaa adduunyadoo dhan ayaa igu soo yaraatay waxaan bilaabay qof alla qofkaan isdhahayo waxbaa ka helaysaa inaan wax weydiiyo waayo duruufta aad bay u adag tahay haddana markaa aragto xaaskaagii oo umulah aan waxba u haynin cunug yar oo naas la nuujinayo xaaskaadin wixii lagu quudin lahaa aadan haysanin wallahi aad bay u dhib badan tahay nolosha marba meel ayay ku tusaysaa maalin maalmaha ka mid ah ayaa nin ganacsada ah xaafadda aan deganaa ayaa dhowr mar aqoon badanna iskuma lihin ayaan waxaan go'aansaday inaan kala hadlo mar walba aan isku dayo inaan la hadlo waxaan arkayay isagoo qof la socdo laakiin ugu dambeyntii waxaan go'aan ku gaaray salaada jimcaha inaan ku qabto khudbadii oo socoto ayaan ag fadhiistay waxaan ku dhahay adeer xaafadda ayaan kula deganahay aqoon badan iskuma lihin waxaan rabaa inaan kula hadlo arrin ayaan ka hadlayahay markaasuu wuxuu igu dhahay wiilkayga hadda waad u jeedaa khudbad la aqrinayaa salaada markii laga baxo ayaan wada hadlaynaa waayaha ayaan ku dhahay laakiin nasiib daro masjidka aad ayuu u weynaa salaadii markii la galay qofba meel ayuu ka baxayaa meeluu ka baxay ayaan waayey haddaan soo orday oo xaafadiisaan imidne muu malaynayo maalinta inuu xaafadiisa imaaday ama laga yaabaa inuu iga soo hormaray inkastoo baabuurkiisa bannaanka guriga una olin waan iska noqday xaafadda ayaan tagay salaadii casirka ayaa haddana masjidkii ku noqday laakiin waan soo waayey xaaskayga waxay igu tiri maxaa kugu dhacay aad baan u murugaysnaa maalinta waayo hamigaygu wuxuu ahaa ninkaa inaan helo waan helay laakiin haddana waxaan raba umaana sheegan waxaan ku dhahay runtii waxaa jira nin ganacsada ah oo xaafadda nala degan ninkaasaan waxaan jeclaystay inaan danteeda u sheego waayo maalin walba inaan qof wax weydiiyo runtii waan dhibsaday waxaan isku dayayaa inaan ninkaa shaqo weydiisto markaasay waxay igu dhahday anaga kuwiilna la dhashay ayaa waxna siin la ma qof bannaanka ah ayaa wax ku siinaayo waxaan ku dhahay ma qof bannaanka ah ayaa wax ku siinaayo waxaan ku dhahay ilaahay cid alla cidduu rabo ayuu wax kugu soo dhiibaa waxaad ogaataa kuwa kula dhashay ee kuu dhow siday kugu danqan waayeen in qof maanta aa baratay uu kugu danqanayo marka waxaa laga yaabaa inuu ilaahay qalbigiisa isoo aadiyo rajada ilaahayna lagama quusto ninkaanaan fiirinayaa maqribkii ayaan baxay masjidkii ayaan ku noqday laakiin waan soo waayey ugu dambayntii xaafaddiisa ayaan bannaanka u fadhiistay waxaan arkay gabar yar oo biyo soo daadinayso waxaan ku dhahay abbaayo aabba ma joogaa markaasay igu tiri ani aabbahay ma aha ee waa adeerkay aabbahay la dhashay markaasaan ku dhahay waayahay ma joogaa mayay tiri laakiin wuu imaanayaa cabaar kadib sidii ayaan bannaanka u fadhiyey ugu dambayntii waa u yimid wuu ii arkay gaariga ayuu ka soo degay wuxuu igu dhahay adeer waan isla hadalnay laakiin waan isweynay haayaan ku dhahay adeer arrin ayaan kaa leeyahay waayuu dhahay guriga galaysaa soo bax sidii ayuu guriga ii geeyey qolka fadhiga ayaan wada fadhiisannay wuxuu yidhi cabitaan ama shaaha loo keeno wiilka adeer dharkaan iska soo bedelayaa waan kuu imaanaya ayuu igu dhahay dharkii ayuu iska soo bedelay anigoo shaahi gacanta ku haysto ayuu ii soo galay awood aan shaaha ku cawo xataa ma lahayn waayo xilligaa waxaan ogaa xaaskayga oo cunug yar nuujinayso ee wax cunto iska daaye xataa waxna ay cabin wuxuu igu dhahay adeer maa shaaha cabto waxaan ku dhahay adeer gurigaaga waxa ay soo geliyey waa duruuf aad u adag shaahan waxaan u cabi laahine adeer xaaskayga oo cunug yar nuujinayso adeer inay wax cunto iska daaye xataa adeer waxba ma cabin waan awoodi la'ahay inaan shaahan cabo iyadoo xaaskayga ee baahan tahay wii soo fiiri adeer waxaa ii sheegaysid marunaa igu dhahay haa ayaan ku dhahay subxaan allah uu yidhi alla maxaa ilaahay agtiisa ciqaab inoo taalaa dariskeena kama warqabno midka gaajaysan iyo midda dhargan adeer wakhtiga ayaa keenay waxaan jeclahay dariska inaan ka warqabo intaan awoodane aan caawiyo laakiin adeer wakhtiga ayaa keenay inaan lisku galin liskana warhaynin wuxuu igu dhahay adeer halkee degan tahay markaas 4 looto ayaan isku jirnay waxaan ku dhahay adeer looto hebelaan deganahay markaasuu igu dhahay guriga aad degan tahay nin kale magaciisa ii sheeg waan u sheegay waa uu gartay waan aqaanaa yiri guriga miyaa degan tahay
haa waayo igu dhahay adeer wax yar isugu baxay isagoo $100 wado ayuu ii yimid adeer wuxuu igu dhahay hadda warka ma gaartid bax nin xaaskiisa ka baahan tahay waad dareemi karaa adeero bax waxaad gadan karta gado aniga bari shaqada markaan aadayo ku imaanaya xaafadaada imaanaya aad baan u kala aqaanaa xaafadan anigu xaafadan waa xaafadan ku dhashay ana ku imaanayo waayaha ayaan dhahay anigoo aad u faraxsan ayaan soo baxay xataa kama fikiray bari wuxuu ii siin doono laakiin $100 ayuu wuxuu ii yahay $100,000 waan soo baxay meel ayaan soo maray marka ugu horeyso xaaskayga ayaan casho u soo iibiyay gasacanana waan soo gatay guriga ayaan imid waxaad u malaysaa inaan dhayman u keenay siday u faraxday runtii qofka markuu duruufeysan yahay wax yar agtiisa wax weyn ay ka yihiin meeshii ayaan ku wada casheenay xaaskayga waxaan ku dhahay aniga soo kuma dhihin bidaadanka isku mid maaha qofku ilaahay wax kugu soo dhiibaayeen qofka ma hor istaagi karto naxariistay walaalaheena noo naxariisanin bidaadan kale ayaa ilaahay naxariista noo soo marinaya waxay ku dhahday bal ii sheegay wax u dhaceen waxaan u sheegay wax walba aan la soo kulmay waxaan ku dhahay rajo fiican aan leenahay caawan duceysanayaa salaadeen waan tukanayaa bari ayuu noo imaanayaa waxaan rajeenayaa in nolosheena waxuna iska bedeli doonto kulay waxaan ogahay nin naxariis badan oo aad u wanaagsan inuu ahaa habeenkii oo dhan ayaan ilaahay baryayay waaga markuu baryay 1:40 ayuu noo soo istaagay banaanka hoorna wuu yeeriyay waan gartay waan soo baxay waan u imid wuxuu igu dhahay soo bax waan ku wadaaya waan israacnay meeshiisa shaqada ayuu igeeyay mar labaad ayuu wareysi ii bilaabay wuxuu yiri adeer sidii wax u jiraan bal nolosha intee ka adag tahay ii sheeg waxaan ku dhahay adeer ma aaminaysaa waxaan ka soo jeedaa qoys aabahood dhaqaale lahaa dhaqaalana ugu dhintay laakiin walaalahay ayaa dhaqaalihii gacanta ku dhigay waxna dhaqaalana ugu dhintay laakiin walaalahay ayaa dhaqaalihii gacanta ku dhigay waxna ma siiyaan xataa shaqo way ii diideen adeer waxaan ahay nin jaamacad dhameeyay wax shaqana aan haynin gabar ayaan in muddaas jecleen ugu dambeyntii reerkeeda ayaa rabeen inay ku daraan aniguna sidii ayaan ku doontay abtigii ayaa ii halgamay oo makiinada bulkeeti lahaa laakiin ugu dambeyntii makiinadii way naga burburtay aniguna noloshii aad bay ugu adkaatay adeer wuxuu dhahay adeer nin wax bartay hadaa tahay aniga shaqo ku siinaya adeer macaan shahaadooyinkaaga ii keen ilaahay idinkii waxba kaama baayaan aniga wiilkayga tahay adeer waxba ha welwelin anigaana diyaar ku ah hadda bax noqo shahaadooyinkaaga keenso aan aragno shaqadaad u qalanto iyo mushaharka u qalanto ayaan ku siinaya adeer bacda duhur dibniska keen halkaan igu imaw waayaha ayaan ku dhahay anigoo aad u faraxsan ayaan soo baxay waxaan imid xaafadda xaaskayga waxaan u sheegay waxaan kala soo kulmay aad bay u faraxday waxay tiri ilaahay waxaan kaaga baryayaa shaqadan midii ku liibaanto inuu ilaahay kaaga dhigo aamiin ayaan ku dhahay sidii ayaan meeshii farxadda ku wada qaybsannay kadib markay soo dhawaatay waqtigii balanta ayaan inaan weysaystay shahaadooyinkaygii qaatay ayaan masaajidka toos u aaday waan tukaday ilaahan baryay waan baxay xafiiska ayaan tagay shahaadooyinkaygii ayuu arkay wuxuu yiri adeer maanta kadib aniga ii shaqeynaysa waxna kaama ba'ay adeer wuxuu igu dhahay $250 ayaa ku bilaabaysaa inay ii shaqeyso haday shaqadaada ay qanciso waxaan ku balan qaadayaa inaan mushaharka u kordhiyo waayaha ayaan ku dhahay bariba soo shaqo tagay ayuu igu dhahay markiina $50 ayuu gacanta iga soo saaray anigoo aad u faraxsan ayaan xaafadda imid xaaskayga waxaan ku dhahay bari wixii ka dambeeyo gaajo iyo rafaad waan ka dhamaanay shaqo ayaa la soo siiyay barina waa shaqo tagaya aad bay u faraxday sidii ayay nolosheeni ku bilaabatay habeenkii oo dhan ilaahan baryayay subaxii shaqadii ayaan aaday shaqadii ayaan bilaabay alxamdulillaah waxaan ahaa adoon ilaahay taladiisa saartay walaalihii dayaceen laakiin ilaahay ima dayacin runtii xaaskayga dhib iyo rafaad diyaar waxay u ahayd inay la soo marto alxamdulillaah nolosheena way isbedeshay waxaan noqday aabe xaaskiisa iyo gabadhiisa yar ka adag waxna u qaban kara nolosha ay halkeedii ka sii wadanay runtii caqabada iyo dhibaatada way iska jirtay waayo xaaskayga mar walba ee aabaheeda booqato gabadha walaasheed wax walba ay dhihi jirtay markay ka imaato way oon jirto habeenka dhan wana aamusin jiray waxa ay dhihi jirtay war rafaaday gooma ayaa ka soo baxay anigoo ka weyn ayaa loo maleynayaa adigu inaad iga weyn tahay
hal cunug ayaad maanta haysataa markaad 2 iyo 3 hesho sidee noqon doontaa runtii habeen walba waan murgi jiray laakiin waxaan dhahay maanta wixii ka dambeeyo waxa way dhamaadeen nolosheena way noo qurux badnaatay runtii maalinta ka dambayso waxaan ahayn qoys isku faraxsan shalay anagoona waxba haysanin ayaan isku faraxsanayn maanta anigoo shaqeynayo alxamdulillaah caqabada iyo dhibaatada ee aniga qoyskeyga iyo gabadha qoyskeedba nagu hayeen intaan wada nooleen duruufta adagna haysatay aad bay u adkeed waayo qof walba wuxuu rabaa isaga inuu ku amro walaalahay dhowr maray waxay ugu dhaheen haddaan nolosha ka bixinayno waa inaad gabadha iska furtaa gabadhana waxba u dhimin xilliga idinka dayaceen ee maaragtay walaaltinimadii iloween ee iyada ahayd qof jecel diyaar u ahayd inay nolosha igula midowdo iyadoo la leeyahay nin qurbaha ka yimid ayaan kugu daraynaa oo aniga ay dooratay ayay leeyihiin ka soo tag anaga nolol ku siinayno shalay waa kuwii nolosha ii diiday iyadana waa qofka anigoo dhibaataysan waxba aan haysanin inay ila noolaato diyaar u ahayd wax walba ha ahaato anagu nolosheeni wayna wanaagsanaatay alxamdulillaah maraan 4 bilood u shaqeynayo ayuu mushaharkani ii kordhiyay waxaan bilaabay inaan bishii wax meel dhigano waxay sidaa ahaataba xaaskeyga uurkii labaad ayay yeelatay waxaa jira dhulal raqiis ah oo la gadanayay dhulalkii ayaa 2 dhul ka mid ah aan lacag aad u hooseyso aan ku gatay waraaqadaheygii ayaan guriga dhigtay dhulkii meesha aan isaga tagay wuxuu waqtiga socdaba anigu xaaskeyga way dhashay oo wiil ayaa Ilaahayna siiyay runtii adeerkiina caawiyay wuxuu ahaa adeer aad u ixtiraam badan xataa marka qaar gurigeyga ayuu soo booqan jiray oo runtii wuxuu ahaa qof aad u naxariis badan inuu shaqo kaliya isiyama ahayn wuxuu ahaa qof mar walba xaaladeyda iga wareysta mar walba wuxuu dhihi jiray walaalaha Ilaahay u bari Ilaahay ha soo hanuuniyo kullee walaaltinimada lagama maarmo waxay sidaa ahaataba gabadha aabaheed ayaa geeriyooday Allah u naxariisto runtii waxay ahayd murugo aad u xanuun badan labadeena waxaan isku noqonnay wax walba waayo iyada hooyadeed hore ayay u dhimatay aabaheedna uu dhintay anina aabay hooyaday ima nooleyn waxaan isku ahayn 2 qof oo isjecel 2 walaalo aabay iyo hooyo ayaan isku ahayn saaxiib ayaan ahayn aniga noloshayda wax saaxiiba ma yeelanin iyada ayaa saaxiib ahayd iyada ayaa xaaskeyga ahayd iyada ayaa jacaylkeyga ahayd wuxuu waqtiga socdaba uurkii saddexaad ayay xaaskeyga yeelatay nolosheeni way wanaagsan tahay alxamdulillaah gurigeeni farxadeeni nolosheeni wax naga maqan ma leh wuxuu waqtiga iyo waayaha socdo maalmaha kamid ah ayaa niyadeyda waxa soo gashay wal labadii qaybo kala fur laakiin ganacsigan waxa ahayn ha keenin ilaa lacagtaada milyan ay gaarto waayaha ayaan ku dhahay nolosheena way noo qurux badnaatay gurigii aan midna gaday midna ii yaalay ayaan waxaan ku bilaabay dhisid shirkad kamid ah shirkadaha magaalada ayaan la galay sidii ay gurigeyga leeyahay bilaabay gurigii ayaa la dhisay 3 biyaana ayaan ka dhistay oo wali horena aan u sii wadi karay qaybta hoose ganacsi ayaan ka dhigay qaybta labaadna xaaskeyga ayaan dajiyay qaybta saddexaadna waan kireystay runtii 2 biloodba qayb ayaan ku daraayay guriga maanta 7 biyaano ayuu ii yahay alxamdulillaah nolosheena way qurux badnaatay xoolihii shalay aabahay uu ka dhintay ee walaalahay ii diideen maanta xisaabta iguma jirto waxaan ahay nin ganacsada ah noloshiisana maaragtay ku filan tan xaaskiisana ku filan kadib markay nolosheena qurux badnaatay waxay isku dayayaan kuwii shalay inabcanaa ee shalay dhibaatada iyo rafaadka ii geystay inay aniga ii yimaadaan talooyinna isayaan waxa kamid ah in xaaskaaga wax walba aasiinaysid iska daa waayo aniga xaaskeyga bil walba waxaan u qoray lacag gooni ah oo iyada ay keedsato oo iyada xaq ay u leedahay guri kale ayaan u iibiyay magaceedana waan ku qoray way dhibaysay wax walbaan xaaskeyga u qabanayo laakiin iyaka ila dhashay oo hal hooy hal aabe ayna dhashay ayay dayaceen iyadana ay soo dhaweysatay duruufta igula nooleed maantay iyada walaaliya iyada saaxiibiya iyada xaasiya runtii waxay isku dayeen inay mar walba iska diraan gabadhii la dhalatay gabadha aan qabay ee shalay rabtay inay nin ku darto waxay bilowday inay caqabad naga dhaxawurto inay wax walba suubiso haday shalay ku dhaga hadli jirtay maanta haday nolosheedii ka hormartay oo nolosha ay ku nooshahay mid ka wanaagsan ee maanta ku nooshahay iyada waxay noqotay inay gurigeena sidoo ku burbur lahaa ay ka fikirto walaalahay si lamid ah mar walba xaaskeyga
wixii aan u suubiyo ay maqlaan waxay ahayd wax dhibayso oo waxay mar walba igula talinayeen aan sidaan iska joojiyo ay xaaskan jacaylka badan wax walba u suubinaya aan ka joojiyo haddii kale beri ay iga tagi doonto kuwii shalay i dayacay ay iga tagay soo ii kama ahayn shalay anigoo wax haysanin ayay ila nooleed ee dhulka ila seexanaysay ay ii gaajoonaysay maanta anigoo wax haysto oo wax siinayo sida iga tagaysaa bidaadanka waxay suubiyaan way iloobaan runtii laakiin qofka lagu suubiyay ma iloobo qof walbana meeshii uu ku geeyay waa inaad ogaataa qofkii abaal ku galane waa inaad u haysaa abaalka abtigay waa xisaabayahayga maantay waa qofkan ku kalsoonahay waa qofka maanta hantidayda aan ku aaminay alxamdulillaah shalay hadduu garab siiyay i caawiyay gurigayga iyo noloshayda qayb weyn ka qaatay ila soo halgamay maanta abtigayga noloshiisa aad bay u wanaagsan tahay isagii qoysaskiisa nolol aad u wanaagsan oo dhaqaale ay ka fikiraynin guri ay ka fikiraynin kire ay ka fikiraynin ayay maanta ku nool yihiin qofka abaal ku gala mar walba waa inaa abaalkiisa u ogaataa mar walba waa inaa u asxaan gudaa qofkii asxaan ku galay qof walbaba ha ahaado qisadayda waxa ugu weyn oo maanta aan jeclaysan inaan igula soo wadaago runtii maalin hore ayaa waxaan arkay xaaskayga oo dhagaysanayso qisada waxay ii sheegtay waxyaabo badan in janalkan ay ka baratay sida daraadeeda aniguna waxaan iri qisadeena waa inaan la wadaagaa ugu dambeyntii sidaas ayaan jeclaystay inaan qisadeeda halkan ku soo gudbiyo waayo anagu maanta nolosha waan ka soo gudubnay qoys weyn oo qof bidaadan ah aanan hamin karin ayaan nahay alxamdulillaah laakiin waxaa jiraan qoysas yar oo sidaan shalay u yareen duruuftii shalay aan ku jirnayn ay ku jiraan cadawgii shalayna haystani maanta uu haysto waxaan leeyahay qoys walba oo Soomaaliyeed oo dhisan waxay soo wada mareen duruuf iyo nolol aad u adag waxaa jiro xilliga nolosha kugu adag tahay kuwa kugu fiirsanayo xilliga noloshaada ay qurux badnaatane rabahadan noloshii shalay dhibaatada ay kugu fiirsanayeen markaa ka baxday inay tii ka burburiyaan waligaay allaha qof shalay duruuftaada arkayay nolosha adkeed kugu fiirsaday warkiisa ha dhageysanin qofkii dhibaatada kula soo marane waa ina adigana noqotaa qof la jooga mar walba garabkiisa ahaado dadka mar walba way isxumeeyaan laakiin ha xumeynin qofkii xilligii adkaa garabkaaga noqday ee ku caawiyay waligaa iyo allaha garabkiisa noqo runtii ani xaaskayga aad baan u jeclahay waa ku kalsoonahay aadna waan u aaminsanahay maanta waxaan aaminsanahay walaalahaygii dhammaan ay xumeeyeen in waxba ay igala maqnayn oo aniga xaaskayga wax walba ay ii noqotay waxaan leeyahay gabar walba oo Soomaaliyeed gurigaaga u sabar ninkaaga u sabar raggana waxaan leeyahay gurigaaga u sabar ninkaaga u sabar raggana waxaan leeyahay gabadha dhibaatada iyo rafaadka nila soo martay ee nolosha adkeed ku soo sabartay waxay u baahan tahay ka qaday maalintaad wax hesho hadda yicin garabkeeda noqo faceeda ka hormari wax walba aad u awoodo si mar walbana iyada inay wax ku weydiisato maaha waa ina adiga wax la jeclaataa waa ina adiga ka fikirtaa sida shalay duruufta adkeed ay kugu la nooleed maantayna waa ina adigu ka fikirtaa wax walba aad u qabataa xilliga quruxda badan dad waxaa jira quruxdaasi rabaan inay ma aragtay wax mugdi ah foolxumo ka dhigaan ha ka ogolaanin talo qof bidaadan ku siiya ha qaadanin xilliga nolosha kugu adkeed ma ku siiyan talo ma ku caawiyeen garab ma ku noqdeen jawaabtu waa maya xilliga noloshaada ay qurux badan tahay ay noloshaada wanaagsan tahay ay rabaan inay ka baabi'iyaan marnaha ka ogolaanin jacaylku waa wax awood badan jacaylka wax badan ayuu ku tusayaa wax badanna wuu ku barayaa dadkana waa kala baranaysaa xilliga adag qofkii ku soo sabraane waa in xilliga quruxda badan adiguna aad u sabartaa adiguna aad garab istaagtaa runtii waxaan leeyahay bulshada Soomaaliyeed ee runtii nolosha khaladka u fahmay ma ahan lacagta shayga koobaad ee shayga koobaad waa qofku jacayl ku aaminsan kugu kalsoon dhereg iyo gaajo kugula joogayo xanuun iyo caafimaad kula qaybsanayo murug iyo farxad garabkaaga ah inaa hesho haddaad hesho qofkaas xaqiiq waxa ah duruufaha adag inaad dardaraysid kana gudbaysid anigu nolol adagaan soo maray way la soo martay baan isla rafaadnay habeena badan ayaan gaajo runtii ku seexanay alxamdulillaah laakiin ugu dambeyntii waan guulaysanay idinkuna waan hubaa inaad guulaysanaysiin isku kalsoonaada ilaahayna isku xira mar walba talada ilaahay u dhiiba mar walba ilaahay barya inta qof bidaadan toogi lahayd
qof bid aadan bari lahayd ilaahay bari naftaada aamin xaaskaaga ku kalsoonow ha kugu kalsoonaato is aamina waa guulaysanaysin anaga guulaysanne anaga dib iyo rafaad soo aragnay ugu dambeyntii waan ka baxnay rafaadkii iyo dhibaatadii alxamdulillah waxaan rajaynayaa qof walba oo qisadeena soo gaartay nolosha adkeeda ee duruufti maanta nolol qurux badan inaan ku noolnahay maanta inaan kamid ahay ganacsatada magaalada Muqdisho kuwooda ugu ladan alxamdulillah waxaan caawiyay dad badan shalay waa la soo caawiyay aniguna maanta waan caawiyaa dadka adigu haddii xilliga kugu adag tahay nolosha ilaahay isku xir ilaahay idinkii waa lagu caawin doonaa adiguna beritoole markay noloshaada qurux badnaato caawi kuwa ka hooseeyo waa rajaynayaa inaad dhaqaale fiirinin ee aad fiirisaan kalsooni iyo wadajir daacadna isku noqotaan wax walba waa ka guuleysanaysaan maanta walaalahay ee shalay xoolihii aniga dhaxalka aan u lahaa ii diiday maanta aniga ka dhaqaale badan iyo dhaqaalihii aabahay wali haysto wallahi aniga ka dhaqaale badan waxa maanta anigu ganacsigeyga 10 sano soo socdo ma gaari karaan waxaan ku gaaray sabar waxaan ku gaaray inaan ilaahay isku xiray inaan sabray iyo inaan xaas wanaagsan haystay iimaan leh kalsooni leh ilaahayna taqaano ilaahay isku xirtay ninkeedana ka dambeysay maalin kuma aana murmin dhibaato iyo rafaad ilaahay idinkiina dheregtana kuma murmi doono kuwii wadajirka ku joogo ayaa noqon doona ama waan duugi doonaa ama way duugi doontaa xaaskeyga insha Allah bidnillaahi kariim waxaad ilaalisaan balamada aad wada gashaan iyo axdiga kuwa dhoora noqda mar walba isku kalsoonaada isna aamina daacadna isku noqda wax walba waa ka gudbaysaan waxaan aaminsanahay inaan daacadnimadii aan isku ahayn ilaahay aan isku xirnay inaan maaragtay heerkan ku gaarnay waxaan rajaynayaa lamaana walba oo dhibaato ku jirto inay ka bixi doonaan guulaysan doonaan rajo fiicanna heli doonaan laakiin waxa isku daydaan inay ilaahay ku kalsoonaataan idinka isku kalsoonaataan aaminaadiina haday badato wadajirkiina dhaxdiina aan qofna soo gali karin waa guulaysanaysan maanta oo aniga aan dhaqaale haysto gurigeyga waxay jecel yihiin dadka inay burburiyaan dhibaato inoo geystaan laakiin ma dhacayso midaas waan naqaanaa nolosha hore ayaa cashiro ka soo barannay mana nihin kuwa ay been u sheegaan mana nihin kuwa ay kala geyn karaan maaragtay shaydaan ku noqon karaan waa rajaynayaa idinkuna inay isu kalsoonaataan is aamintaan daacad isku noqotaan ilaahay idinkii inta rafaadsanne rafaadkood ka bixi doontaan runtii waa qiso in lagu waana qaato mudan mar walba waxa idin soo gudbiyaa qisaan isla yahay team Higgs number 1 haday daawadaan haday murugaysan yihiin oo xaaladda ay ku jireen waxa xaqiiq ah inay rajo gelin doonto qisadan mar walba waxaan jeclahay in qof walba oo Higgs number 1 daawado oo isdhaho alla ilaahay waqtigaaga qaaliga ah ku daawatay Higgs number 1 kaama qasaarin 10 ayaa ka baratay waayo nolosha way dhib badanta maanta adiga ku soo mari kartaa beritoole walaalkaaga iyo ehelkaaga ay mari doontaa si aad 10 ugu baranno nolosha wax badan ugu fahanno dad badan ayaa aaminsan nolosha inay tahay dhaqaale oo kaliya dadka qaar waxay ku leeyihiin muxuu yahay jacayl muxuu taraa jacayl laakiin waxa ogaataan qofka haduu ilaahay isku xiro kalsooni xaas ku jacayl nin ku jacayl dib iyo dhaafin kula qaybsada raba hadaa haysato wallahi jacaylka wuxuu noqonayaa mid dhaqaale inuu suubiyo lacag suubiyo ugu dambeynna dheemankeena maanta wuxuu yiri waxaan kamid ahay ganacsada waaweyn walaalahay xoolihii aabahay ka dhintay dhaxalkan u lahaa maanta meesha aniga aamaro ma mari karaan waxaan ka ganacsanahay kama ganacsan karaan maxaa keenay inuu ilaahay isku xiray talada ilaahay saartay xaas wanaagsan kalsooni rajo ku qabtay hal maalin aan ka niyad jabin si walba ee walaasheed ugu dhaga hadasho si walba walaalihiis ay u xumeeyaan labadaba ma aanay niyad jabin kalsooni ay ka qaadeen wadajir ay heerkan ku soo gaareen runtii ha qoosanin ha rajo dhigin gurigaaga wax la'aan dartiisa ha ugu tagin maalinun nolosha way isbedelaysaa qoys walba aad aragtid oo maanta faraxsan nolol qurux badan ku nool shalay ay nolol adag oo rafaada soo mareen wadajir ay u soo mareen adiguna waxa isku daydaa in nolosha u halganto ninkaaga ina ka dambayso dhibka alla qaybsato adiguna xaaskaaga dhibka rafaadka ku marayso beritoole markay noloshaada qurux badnaato qisadan kuwaana qaado 10 badan ka baro waa rajaynayaa in wax badan ka baran doontaan xaaskaagana aa wanaajin doonto mar walbana ay ku noqon doonto qofka koowaad ee noloshaada inay noqon doonto dad badan jiri doono caqabad idinku noqon doono isku dayi doono inay kala geeyaan iyo dhicin inay kala geeyaan nolosha isku sabra
wax walba waa la helayaa. waxaan rajaynayaa qof walba oo muuqaalkan daawaday oo heerka ay la soo gaaray inuu qoyskan u duceeyo in Ilaahay nolosha maanta ay haystaan uu u ziyaadiyo awlaada baar Ilaahay ugu dhigo farxadooda cimri dheer Ilaahay siiyo kuwii adduunyada rafaadi dhibaato ku soo wada maray maanta noloshooda u qurux badan tahay Ilaahay gurigooda wadajir ugu dhigo aan ugu duceeyno aanu duceeyno salaada markaan tukanno aanu duceeyno kuwa rafaadsan iyo kuwa nolosha wanaagsan haysto qisadooda waxay noogu soo gudbiyeen inaan kuwaana qaadano ina farxad geliso waxa laga yaabaa qoysas badan oo Soomaaliyeed inay niyad jabsan yihiin ama qof ama shakhsi inuu niyad jabsan yahay markuu muuqaalkan arko modelkiisa uu dhismo niyadiisa ay dhisanto oo raja ee gasho waxa rajeenaya qof walba oo murugaysan inuu Ilaahay murugada ka qaado qoys walba oo Soomaaliyeed oo dhibaataysan cadow leh inuu Ilaahay dhibaatada iyo cadawga ka qabto ayaan Ilaahay ugu baryayaa hadii aad nolol iyo guur rabtana guur xalaal ah nolol wanaagsan Ilaahay ku sahlo hadaa shaqo raadis tahay shaqo wanaagsan oo xalaal ah Ilaahay ku sahlo qof walba oo murugaysan meeshuu ka murugaysan yahay Ilaahu baa oge Ilaahu murugta ka qaad inta xanuunsan Ilaahu caafi waalidka inta dhintay Ilaahu u naxariiso inta caafimaad qabtane Ilaahu caafimaadka u ziyaadi inta xanuunsan Ilaahu caafimaad si inta waalidkood dhintayna Ilaahay oo umada aabay hooyo u dhig waalid la'aan waa dhibaato waa murugo waa dujeedad qoysaska inta badan markii waalidka uu ka baxo ay dayacmaan Ilaahay waxaan ka baryaa inta waalid la'aanta ah umada inuu aabba iyo hooyo Ilaahay ugu dhigo ayaan Ilaahay ugu baryayaa anagana kuwaana qaata 10 u noqoto qisooyinkan aan soo gudbinayo ayaan rajaynayaa inaan noqono mar walba waxaan jeclahay inaan wax ka faa'iidaan YouTube kan Higgs number 1 waxaan rajaynayaa qof walba oo Higgs number 1 ku xiran inuu wax ka faa'iido noloshana wax badan uu ka bartay haduu yahay muuqaalka ay kugu horeeyay waxaan ka codsanayaa inaad channelka subscribe saarato si aad ula socoto qisooyinka aan soo wadno naguna dhiirigeli inaad muuqaalka like saarto qaybta faalada qoyskan ugu duceey ra'yigaaga iyo taladaada qaybta qoraalada nagu la wadaag